السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصحابتك حنا كان كتيجي شو waxaa jira dad badan oo aad markaa aragtid la yaabisid caalamkan. Haweeney magaceeda la yiraahdo Yuan Xia oo haweeney u dhalatay dalka Shiinaha ayaa Guinness World Records ku gashay baalasha indhaheeda ee ugu dhaadheer caalamka. Baalasha indhaheeda waxay gaarayaan 4.12 sentimitir. Waxay jebisay rikoodh hore ugu yaalay nin u dhashay wadanka Ukraine oo la yiraahdo Valery Smagli oo baalasha indhaha ay gaarayaan 3 sentimitir. haweeneyda Yuan Xia waxay sheegtay baalasha indhaheeda inay yihiin kuwo aad u qurux badan, waxay tilmaamayaan caafimaadka iyo cimri dheerka. waxayna sheegtay in aad u ilaaliso marka ay meerayso. Dumarka badani waxay jecel yihiin in cidiyaha la baxaan. Harlem waa fanaan gabayaa mulaxan dheer xayeysiiye Mareykan ah. Guinness-ka waxa uu ku galay habka uu shalaysto timihiisa oo loo aqoonsaday timaha taagman kuwooda ugu dheer adduunka. Timaha marka uu shalaynayo waxay gaaraan 52 sentimitir. maalin kasta inuu shalayo waxay ku qaadataa 2 saacadood oo laga shaqeeyo si ay u gaaraan dhererka 52 sentimitir. muuqaalkeen intaas ayuu ku egyahay. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.